markale saaxiibayaal kulanti wanaagsan waa qaybtii labaad iyo wareysigii gaarka ahaa ee ku eegaynay nolosha maxamed saciid biike axmed waxay noo joogtay heesahaaga iyo heesiyaad soo qaaday iyo kuwii aad ku qiiroon jirtay iyo arrimahaas way de markaan fanaanka ahaa markaad de fanaanka ha imika de wax kuma qiiroode imika waxaan jeclaan lahaa inaan quraanka duubo oo aan aad ugu qiiroodo codkayga markasta waxaan jeclahay inaan wixii hore aan ku qaaday inaan wax wanaagsan ku qaado oo takbiirto kale ku qaado quraanka ku duubo nashiidooyinka caadiga ah dadka soo jeedinaya insha Allah marka de codku waa xaggaas inuu bedelayna insha Allah iga raalo dafankaaga wali ku jira way maxamedkii horaan wali la sheekaysanaya way heesaha teeba kugu saameyn badneed oo lagu soo celiyay ilaa hadda lagu celiyay ama inta tan ku jirto waan qaaday oo ugu saameyn badan oo inta aan qaaday soo ma inta qaaday wani hees badan baa jira waan qaaday laakiin heesay dadku mar walba ay weydiin jireen waxay hees laada cawo calaf qoyskeen baro ceesh laygu ka daro cusub iyo dhulbaadlaan cagahaaga dhigila marka ilaa tiidinkii markaan qaaday ilaa maanta mar walba dadku way weydiin jireen waa heestaas ay u saameyn badan marka waa jacayl u bay urdooxi sheekooyinka heesaha ku saabsan uu geli doonaa laakiin magaca cawan ku soo xasuustay magacyo fara badan baad ka heystay way maxay sirta gaarka ah hablaha adigu magacyadooda aad ugu heystay nimca yaasiin baa tiri gabdhaha waa lala qoslaayay miyaa lagu qayliyaa horta gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan halkan aan ka wada salaamaya gabdhuhu noloshii oo dhan baa ku tiirsan nin kasto libaaxa ama wasiir ha noqdo ama fanaan ha noqdo ama de ganacsade ha noqdo ama de meel ka muuqda qof dumaro adag ba ka dambaysa waa hooyo waa walaale way kula dhalatay waa dhashay dumarka noloshoo dhan baa ku tiirsan nin kalena wuxuu yidhi hadday lix qadaan libaax ma cune halaydayo dumarka oo dhan baa dhay anigu isagu dumarka waa weyn buu yidhi marka dumarku waa muhiim sidaa darteed baan ugu qaadi jiray heesaha gabdhaha oo dhan Soomaaliyeed de waan ka baxay fankee waan ku wada dar lahaa marka adaa awaanada ka codsan jiray magacyada mise ana ku darsan jiray markay ii soo sameeyaan baan ku darsan jiray marba gabdhaha qaarna aan u qaadayna way jireen laakiin waan jeclaan jiray gabadh kasta inuu magaceeda ku heeso muhiimadu wax kale igama ahayn oo de gabdhuhu kugu soo urureen ma ahayn gabdhuhu meeshay Soomaaliya ugu jiraan baa aad u muhiim markaan sii sharaxo qurbe hadda tagto gabadh baa wax maamulaysa oo de xafladda ku imanaysa oo wax kale agaasimaysa halkan bacadka iyaga fadhiya hooya fadhida intaasoo qof ay jaamacadaha ka saareen gurigii bay ka warhaysaa de intii waddanku burburay ee Soomaaliya de burburtayna de qodobka ugu horeeyay lagu tirsan waa dumar ka labaadna anagu marka la weydiin la waxaan la sandalada iyo caaqilada iyo ogaasyada iyo dadka nabadda ka taliya baynu ka kalena ku tiirsanay waa labada heesaha badankooda daboolan oo qisooyinka heesaha inta badan way fara badan yihiin way maxaa sababay ku de horta wuxuu sir adoo kala jacayl kugu dhacaya way deedna wadi la wadaagtay arinteedii oo dabadeedna hadii doonto gabadhi waa laga guursadayba way de waa sir oo Soomaha anigina wadi dhibtay farintina waan qaaday labadeena isloog iyadina waynaanay ogaan markaan qisooyinka hadhow ka sheekeynayaan damco buugeena ku qaro magacyada dadka waan qarinaya waayo de qaar baa dumarada la qabaa qaar baa caruur dhalay qaar baa magaranaysa de marka qisooyinku way fara badan yihiin kana leedahay heesaha daboolana heesaha de waa yeelku hadalka waa daboola waa yeelku de waa guud mar buu sameeyaa de waxaan dambe lagu heesay miyaad cayd la yar fahmiyay waxa ka fiican tusaale ahaan deer Xasan Xulban u soo qaadanaya tusaale hees uu dhiibay leedahay adduunyo de midhaha maroolan akhriya waqtigo mar guran baa mar godlada barwaaqo waa giraan adduunyadu hadba galin baxayna dadka ruuxa gacan maran inkastoo gocawlani garabkiisa suran yahay yaan waayihii gabay kugu oran gob maaho waxaad galin ba aragtay hadba dhayo guudkood
iyo garasho kaa noqon gobonimaha wadabadin ruuxaa galab isbarateen hana moodin gacalka guushaada ruux necb adigoo gargaar biday ruuxa gacan ku siin kara abaal maanta uu gabay berri yaanu kuu gudin cimrigiiyo gugaaga iyo garaadkaaga kaasho guru cadalka u odhan ha ku waayin ruux goba erayaanu kaa geen xasan dhuxul halkan aan ka salaamaya waa abwaan khatara weersamaa ka mid a heesta hay dhaafini ka warranyada adduunyo isagaad weydiinaysaa xasan iyo qisaduu ka sameeyey isagaynu dhaafaynaa waa de midhaha marka saa loo akriyayo de waa top way oo muusigu baa xaaratinmeynaya falsafad nololeed bay laakiin waxaa ka mid a weersame weersame waa nin abwaana khatara halkan aan ka salaamaya midhihiisuna aada u fiican yihiin markaan doonayo inaan 2 sano 3 sano cidii soo gaarin xasan weersame ka qaadan jiray intaan u lugeeyo baan weersame ka duwan abwaanada ma kala dhaca waa gaari holka fadhiya midhaha waan salaamaya aad baan salaamayna waxaa ka mid ah dhaxaan niyad meel u jeeda jaleeco kana wilay dhaxaan qalbigayga jeedal ku jiiday iyo gubay jigraar iyo weedho dhifle dhaxaan ku jalbeebanay ha yeeshee ruux jabkiisu qardhaas u jaxaasi waayey jimiimica caashaqleeyey wuxuu ka noqdaa jaguge jalkii hore waa duruusi ilaa janno way dambaysay weli hadduun baan janta saaray jidkii caashaqu lahaa ee jacaylka balaanqaleeya taasaa ka mid a marka ma jacayl buu ها وجعل دحان حبس عاشق شيفي جلكيغو ahaa tawaawac heesaha jiilaal ku leefay maxaan jiri soo irkayay buuri inteen jeedaalinay kaliya laabiga jeertay warsaas duliis waxa kamid ah inkastoo bu'aan ballan kula galaan been iyo baroor kula baal ordaan bariirada macaan kugu baabayaan booliyo jacayl kugu beerayaan bini aadanka lagu kala bartaa markaad baahantii iyo markaad tahay bista warsame waa nin abwaana balanteena wadi weydiisay abwaaninta niman badan oo abwaanina jira oo de toba oo midho badan aan ka qaatay war saaxibaad baan idin salaamaya abwaanintuna meelo shishe oo aan dadku arkeen bay wax ka arkaan midhana kugu dhiibaan halkan aad leedahay de heesa jacayl fara badan iyo kuwa kale baan qaaday marka de laakiin aan ka dhaxgalay ha heesa badan baad ii sheegtay dhowr shay soo weersame iyo salaxba waan soo hal qabsaday weersame koodii u dambeeyay ku noqday si guud de balanteena haydina ku ordo xamaanta hay ma heesuhaas ma jacayl bay haayeen wali heestu ugu dambeysay hadda ay qaadisay mise waxyaabo kale ku saabsan maya de waa heesad horta mid waa jacayl waa muuqata ta kalena bini aadanka lagu kala bartaa markaad baahantii iyo markaad tahay bista oo de waa qiso iyadoo la garanayaa baad garanaysaa laakiin halkan ay dadku igu dacaydeen inay yiraahdaan heesada antii wax buu qaaday ha waan qaaday heesa badan oo daboolan laakiin halkan ku sharaxi maayo mid baan laakiin ku soo qabanaya way ila balanteena urdooxa way hay naf raacday baan ka reebiyay kala raysanay si soo rogta rabbi baan wanaag ka rajeynaya heestaa waxa ay keenay abiib iman xasan nin wariyaa baa iska leh dabadeedna qisadeeda iyo qaabkay ku saabsan tahay baa isagaad weydiinaysaa marka la kulanto abiib iman xasan isagaa la heestaa marka nafku raacday baan kaa reebayaa kala raysanay si soo rogta rabbi baan wanaag ka rajeynaya intaas ka xasuusta marka abiib baa taa weydiinaysaa laakiin jacayl ma waa jacayl heestaas raxmaan leeyahay magaceeda ka soco waaye heesta kale aan doonayay inaan soo qaato waxa weeye waaye aw ciladii heshay waxa weeye barnaamijkeenu loo kala bixi maayo haya jacayl taliyari ku beero horta su'aalahan waan ku fasaxay caawa inaad waxaad doonto weydiiso urdaaxa balin bulshadana mar kale waan ugu celinayaa mar kasta dadku waa istuhmaa waxay isleeyihiin ninkii malaa fankii baa niyad ka haya waxbuu darisaya waa kan dee shaashadii ku batay oo waa kan ma garanaysaa dee waxbay dadku isweydiinayaan oo committeega marar bay qoraano waxay isirahdaan waar ninkii dee ma garanaysaa waar iminkaan idiin sheegaya anigu waan ka raystay halka alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baana mahad iska leh jawi kale iyo nolol kale iyo arrimo kale aan doonaya inaan idinla wadaago oo inu ka wada sheekaysan doona marka mar walba laabta ku haysta inaan anigu soo noqonin dad badan baan dee la kulmaa intaan ku gelin qisada suuqyada Hargeysa markaan marayo ama meel kasta waxay yiraahdaan arwadada walo madaxa dhulka ugu dhuftay yiraahdaan isagoo star maalin dhow halkaas aan dhar waxay siinayo markaas gabar dibadda joogta intay WhatsApp-ka igala soo hadashay bay baldiinkaas ilaahay casili
starkii dhamaa wuxuu xaysiinayaa marabay jirta iyadana halkan aan ka salaamaya waxaan leeyahay dhalinyarada aan wax u xayeysiinayo iyo carwooyinka iyo dee waan dhiirigelin bay iga tahay dhalinyaraduna inay wax yeelato waan jeclahay waktigan la joogana dadku waa gob waayuhun baa gabay wayna helayaan himiladooda iyo wanaagooda marka dee dadkaas un baan kamid ahoo waxba ma dheeri qofku isagoon salaamin baan haddaan iska hornimaado salaamu calaykum anaaba kaga horeeya marka dee nin iska furfuran dee waa halkii hadraawiye wuxuu yihi kasoo baxaya ilka jaadka adduunka rogo markaale marka dee muurkii iyo balaayadii baan kasoo baxo labada inood bu way shidan yihiin alxamdulilah qisada heesta jacayl taleeri ku beermay taariikh xumada iga raacday sooyaalka igu taalo allah u naxariistay waxa sameeyay afkuriye qisadu waxay ka dhacday boorame waan dul maraynaa heesta marheeda waxa ii keentay asmalof halka ka salaamayo axmed weli baa ii tumay heestu waa qiso jacayl oo aad u xaqiiqa oo dhab ah boorameyna ka dhacday allah u naxariistay isagoo nool oo dhakhtarka ku jira inaan dhakhtarka ku haya oo ay family yihiin baa jacaylka iyo qisaduba ku dhacday inanku suu odayga ugu shaqaynayay allah u naxariistay unbuu loo sheegay gabadha isjeclaa in laga guursaday deedna abwaanku wuxuu arkay dee inankoo la haysto war maxaa ku helay unbuu yidhi dabeedna qisadii buu uga shekiyey deedna qalinkii warqadii keen buu yidhi wuu qoray jacayl talayari ku beermay taariikh xumada iga raacday sooyaalka ha igu talo tallaabo degdegaan u qaaday sidaan ugu turunturooday tusaaleha ii haato tagtada casharka iyo dhigtiyo haddaan taalada dhacdada ku taamila qaadan waayo tasoobiyaha laga qusto warqadii markuu qoray allah u naxariiste isagii intii dhimatayba warqadii inankuu dhiibay wuxuu yidhi bk u geeya dabadeedna saasaa laygu keenay asmalof ay keentay deedna waan ka baqi jiray midhihiisa inta badan wuu de waxbuu duri jiray allah u naxariiste dabadeedna oo heeso badan oo antiyo buu samayn jiray deedna waan ka yar yabaalay markii hore saasaan u eego qisadeedii baa layga sheekeeyey markii dambe inankii baan u yeedhay inanka waan wala kulan inanka waan la kulan qisadii iga sheekeeyey inantii kale macaa waan kulanay qisada axmed weli baa ii geeyey salaamaya laga guursaday ha marka halkan aan ka wada salaamaya duuduub midho dare duuduub baa lagu wada laqaa reer booramina aad baan u salaamaya wadada sharaafa wadad qalbi fiican waa meelaha berbere iyo boorame iyo muqdisho iyo waa meelaha jacaylka aada ugu wanaagsan marka booramena waa magaalo degan sideedaba magaalo jacayl isaga samaysato dadkeeda lafteedu waa degan yahay boorame meelaha mustaqbalkaan isleeyahay gurigeena ka xadxaadta bay ku jirtaa boorame aad baan u salaamaya halkaas qisaas le ma jiraan heeso kale oo aan jacayl ahayn dadku laakiin jacayl ay u fasirtaan oo aad qaaday oo aad ii sheegi karto ama ay dooran karto ma doonayo caawa inaan kula wadaago maadaama inta soo su'aalood ku fasaxay mar kale aan kaaga dhigaya way jiraan heeso badan oo qisooyin ku saabsan kale heeso siyaasadaysan heeso fara badan waa qaaday wax fara badan laakiin midun baa ka xasuustaa oo jacayl ahayn dadku laakiin aan arkay iyagoo jacayl horiisanaya laakiin midhahun baan kuu sheegayaa midhahana waxaa sameeya cabdullaahi dheere tv-ga qaranka uga shaqeeya waa nin reer nairobi ah oo imika laakiin hargeysa joogaa cabdullaahi dheere halkan aan ka salaamaya nin aad u wanaagsan abwaana yaa waduud baa wax lahaysta labaan mid ka goynaya naftaan looru diidaya lugooyo horoo dhacdaan ladnaan ku nageynaya haddii lugahaad ku socoto midkood laxos kaaga dhaco mar baa lowga laga jaraa langare xalka oo noqda dantada ku luutisa lamaanaha wada jirkood luriyo uu hadimo dhalo hadday kala leexato markaa ay kala libdhaan haddii aad la yaaban tahay miyay iska lulan lahayd anoo laqay sheeko hore laxiibka jacayl luray intaan laacay wada jirkeen libtaydii u laalay shalay wataa lafahayga iyo adigu lafankay cuntee haddaan laqay oo ilaaway maxaa haantaa lunshaba adiga lingax kaaga dhigay qisada heesteeda waa hees magaranaysaa farsamaysan cabdullaahi dheer aad weydiinaysaa yaa waduud iyo qaabka ugala jeeday marka anigood dhaafinaysa wax badan baad ka galgalasho laakiin waa isla galgalashadaas haddii maxamed siciid kusii jiri lahaa fanka halkuu ka heesi lahaa muxuu ku heesi lahaa siduu heesi lahaa
ilaahay uma sii jirsiiyo وهدي haddii weeye soo ma horta si kala laab furan baynu wada sheekaysanay caawa bulshada soomaaliyeed ayna daawanaysana markasta waan iska jeclay bulshada waan iska salaamayo waxaan leedahay guuleysta intii dhibaato goysatay ilaahay ka saaro haddii aan kusii jiri lahaa ilaahay iguma jirsiiye waan ka baxay xaggan Ethiopia ay naga xigtaa oo dad aad u fara badan afka waa ku heesi lahaa horta oo customer badan baa xagga naga xiga way oo funkuna customer kama maarmo de kama maarmo hay hay ummadda Soomaaliyeedna waan wada heesi lahaa ilaa baydhaba afafka maxaa leedahay mayga maxaa waa isku dayay inaan barto haddii aanan aqoonna qaar garanayo baan la bal iga caawiya way fanka fanaanku wuxuu ku fiican yahay Soomaali oo dhan inuu heeso waan la qabyaaladayn waan la siyaasadayn oo meeshu doono ka digi karo isagoo bilaa turxaan oo cid doono amaani karo oo xor yahay ayaa fiican halkan waxaan aad uga salaamayaa dadka hadalla badan way ka tagtagaan marmar inkastaan u heesay oo raali geliyay oo mar walba aan jeclahay Muqdisho iyo Soomaaliya midho badan aan ugu sameeyay oo aan ku amaanay way jirtaa iyo xal marinba reer Muqdisho ciyaar reer xamar raad baan idin salaamayaa waana jeclahay Soomaali oo dhan inaan tago meel kasta dadka aan aad u soo wada naqaanay haddaan cid ka garanayo meel walba oo amniya waan jeclahay inaan tago waan doonayay inaan tago meel kasta Puntland ugu horeysay Muqdishona afar kelmadood baan oranayaa dadkaas waa dad gob ah oo aad u wanaagsan nin dhalinyaro hadal mar barbar buu ka tagaa laakiin raali gelin fara badan waan bixiyay ummadda Soomaaliyeed waan idin jeclahay galada baa baxsho garaadku waxbuu hagaayay gob weeyaan reer Muqdisho kowdii marka fanaanku wuxuu ku fiican yahay inuu Soomaali oo dhan dhexu yahay in sharaftiisa iyo karaamadiisa la ilaaliyo inaan la jiirjiirin inaan reer lagu sawirin inuu saasaan ahaan lahaa haddii aan kusii jiri lahaa laakiin ilaahay wuu iga saar fanaaniintii hore ee Soomaalida dumarkii baan sheegaya waliba ama rag badhe haddii aad kusii jiri lahayd baan sheegay yaad jeclaan lahayd inaad ka garab haysto oo kuu dhiman oo aad niyadda ku haysid gabdhaha mise sidee gabdhaha igu celiso shamaatri fanaaniintii waaweynaa Soomaaliyeed ee hore kuwii waa bari ragii waaweynaa dumarkii waaweynaa intii dhimatay inta nool yaad jeclaan lahayd oo niyadda ku haysid oo Allah uu naxariistay haddii ay noolaan lahayd magool oo kale baxsan isoo qabo mandeeq qoonte oo noo shaayadu halkan ka salaamayna dadka waaweyn waa bari baan jeclaan lahaa inaan la qaado mashrax isla taago oo dadka waaweyn wuxuun bay kugu kordhinaya fanka dambe casriga ana qof fan stage isla istaago oo markaan wada heesayno aan aad u jeclaan jiray oo inaan leeyahay Saare Axmed Cabdullaahi Saare Leys waa kaftan midhan gabadhaas iyadii family-geeda caruurteeda hooyadeed halkan ka wada salaamaya gabadha aad wanaagsan oo calool fiican fankana markaan soo baxay waxyaabo badan bay igala qabatay fanaanad weyn oo anigoon cidiba aqoon bay markaan soo yar baxayay aad bay iga yar caawisay oo heeso badan iyada la qaaday ayaan dadku aad igu barteen Saare halkan ka salaamaya haddana ka tirsan wasaaradda faafinta aad baan u salaamaya calool xaadan oo nadiif ah oo markay stage-ka kula saaran tahay waad qoslaysaa kula kataysa marka lodka dambe gabadhaas aan ugu jeclaa laakiin dib in baad sii wadaay balkan waan ka baxay su'aaluhu baaduma kaga jawaabay maxaa uga baxday waxaan uga baxay horta waxaan Ilaahay baa bixiyay waa hadiyad Ilaahay siiyay oo bixitaankan meel dhan oo intaas oo sanadood aad ku soo jirtay saad uga baxdaa horta way adagtay laakiin Ilaahay baa iga masaxay umar baan soo nacay sababtaan uga baxay sheegay bulshadana waan sheegay inta badan fankeena Soomaaliyeed mustaqbal ma baleema horta taaliq waa ku laba rigi waaweynaa baan eegay Maxamed Saleebaan Allah u naxariistay baan eegay Cabdi Tahliil baan eegay waxaan eegay Umar Dhulle Allah u naxariistay rigi waaweynaa magaranaysaa teelogsti noloshoodii baan wada eegay qof kasta markaad eegto fanaan ah meel adag bay noloshiisa ku dhamaanaysaa ama waxaad arkaa TV-da iyadoo sawir la soo dhigay ama isagoo loo baahaynayo ama isagoo aad u dayacan oo fanku ilaahayna ma jecla muusigan markuu yahay
dee karaamana ma leh qofku isagaa iska sameeya dee karaamada dee ilaahay baa siiyo oo markaanu bilaa balwad yahay music aanu lahayn dee abwaan sharaf leeyahay waa meesheeda fankeena Soomaaliya adigu mustaqbal male markaan arkay wadada inay meel adag ku sii dhamaanayso ayaan ka tabaabulshaystay waxa la yiraahdaa ama buurahow ama buur ku tiirsano baaqiga waxa ku haray meelun ku xaqxago baan siri laakiin bulshada waxay moodayaan in la igu bushkareeyo dee aad layga saaray laakiin cidina iguma tarqiin hooyo aan aad u jeclay xaasko aan jeclayn ba fanka Faadimo Qurxoon halkan ka salaamaya iyadiyo caruurtaba ayaa aad iyana u nacbay oo aan jeclaynba ka bacdi iyo anigoo sii nacayba sida darteed fanka saasaan isaga dhigay mustaqbal la male cadow badanna waad ku yeelanaysaa oo qofka hadduu caan noqdo habeenada markaad shooyada dhissanayso marar baan soo jiray nin ka nabad baxaysaa dhulka qaar sababtoo waan ku sheegay dadka aad u yeedhay qaar baan miyir qabin baday daldo wal sarxasi muusigan wala tumaya hawada salawada maraya marka adiguna stage-ki wax ku control ma haystid marka qalab soo aniguna inta badan way saqab baan ku soo fuuli jiray barihi tamboodin anigu dadka khamriga cabana ma ahaan jiray jaadka iyo sigaarka baan cunay jiray jaadka iyo sigaarka waan iska daayay ilaahay bay iga madoobay marka stage-ka anigu caadi ah qof caadi ah ma soo fuuli jiray marka dadku waxay yiraahdaan dawladdu waa kan qosliyay laakiin qeyrada kale ma wax isku qeyrada kale waa heestu ma gali jiray gariga jinga kale igu jira qosolku waa hibo oo dhawr ilaahay marka markay arkaan aniga qosliyo meelaha aad saaran baan no wallahi wadigu caaw irku maraya marka way igu dambaabeene waxyaabaha ehelkeeda ma ahayn marka fanku sideedaba markaan anigu sida u qiyaasay meel ku daafada buu yaala fanka Soomaalidu ka adduunku ma ka Itoobiya inta ay noo jira meel fiican buu yaala ka carabta inta noo jira meel wanaagsan buu yaala marka dee fanka Soomaalidu laakiin wuxuu yaala meel aad u hooseys iminkana uu mastawihii hoos buu dhaafayo qabiil buu gaaray maamul goboleed ka war meel hoosta dhaqaalan laga helo magacuun baa laga helaa marka si kastuu u cod macaan yahay Allah naxariistay rag badan baan dee aaskooda joogo dee aan wax ka aasay marka la yiraahdo fanaan baa halka ku dhintay Allah dadku waxay ku leeyaan fanaankii baa dhintay Allah ilaahay dambiga ka dhaaf hadda markii hore inuu dambiga way la dhufleynayeen Allah ilaahay qabriga waa si wala cadaabaya bay koonayaan qaar marka ilaa waxaan leeyahay fanaaniinta war adigu adoo fanka ku jira ku dhiman ka tasho ilaahay baa wax kale ku siinaya anigu markastaba waanadeydan iyo dee wacyigelintan aan idinku celcelinahay dhibsanina saaxiib waan idin jecelahay laakiin ka tashada nin weyn baan oo warramay maaye waaba loogaan waxaan arkay laakiin mid baa xalaal ah oo fanka marka xaqiisa wanaagsan laga eego dee xagga negative-ka yaan tuurine waxa jirta nashiidooyinkan carabida ah oo Soomaali laga dhigo oo cod bila muusiga lagu qaado okay heese bila muusiga culimadu waxay yiraahdaan waa caadi teatar islaamiya sida hamiga aan sheegay dee su'aashan sheekh tir weydiinayo kale hadii la sameeyo waa fiican yahay riwaayad yar oo la jiro oo fariin bulshada loogu sheegayo nadiifa fanka qayb islaamiyo aad u fiican qaybta muusiga mooyee laakiin waana aaminsanahay inuu yahay waxyaabaha bulshada wax lagu fahansiin karo fanku waa ka koob reer Soomaaliland wax kale kuma fahmaan suugaan bay wax ku fahmaan marka inta san ku dhaafna maxamed iyo وفنان أنا حكيت سكوتي واي محمد السياسي يا ابن محمد السياسي ده حكى قلي نقول شو نبى السياسة ده كسر ميسان مركا من كنا ده أنا قررت إني إسكا قلبي حالم بانه سياسة ده أنا ما قانو لكن حلقة قرنك مو بان منك وحن تاجر عبد الرحمن محمد عبد الله عرو سياسون بيدتك ويرادنا لا وسياسي هي حرصي على حاجة حسن قدومية حسبية ودني لو بدو بحال كان كسلامية حسب ما كميت ما يانو كمان بديه لكن ده هو تاجرنا تاجرياشنا أنا أقول حسبي كمان لكن تاجرياش وين بان هاي مكان وين عبد الرحمن محمد عبد الله عرنا وإن شاء الله إنه مدحوينه كنقد الصومالي الآن بالشدة غير الصومالي الآن وحنا لها وريدين كونس كلا جورينين نينكا سامبلكا أنا نيجي شاندي وفلتر كي نيجي مري وأنا قلبي حارن وأنا بلا قبيلة ده وأنا دت كينا بالشدة ودنا سو كيني كريه
ninkaa codkiina siiya aqlabiyad ku siiya mar labaadka dee qofka qof baa lasoo tijaabiyaa soo maha dee qoladii hore waynu eegnay dee wixii ay qabteenna dee wixii intay garanayeen bay qabteen oo dee inagu anugu dee siyaasi miya waxaan onayaa dee wixii aad soo gaarsiiseen qoladanna halkii bay ka qaadayaan wax wanaagsanna way inoo keenayaan maxaa kamid a waxyaabaha inoo keenayaan bulshaday midaynayaan cuqdada iyo qabyaalada inaga saarayaan waa dad nabadeed aada u fiican isaga iyo xirsiba cabdiraxmaan waa nin hayina oo anigu waxaan odhan karaa haddaanu mucaarid ahayn oo qof kale halkaa ku jiri lahaa maanta madaxaynu isla geli lahayn waa nin wax walba dulqaad halkaa kusoo gaarsiiy qofaan jeerjeerin anigana kusoo qof walba wuu jeerjeeray ninkaa marka halkan aan ka salaamayaa ilaahay madaxweyne haynooga dhigo markuu ku guulaysto kursiga haleelana waxaan jeclay inaan loo neekin stageka halkaa in soddonka qur-aanka lagu khatimo la saaro in cuqaasha iyo sandalada somaliland la isugu yeedho in bulshada dooratoo dhan ay u duceyso ducaa wax lagu saarade dabadeedna ilaahu kii meel fiicanna geeya oo dee duca lagu saaro sandalada iyo culimada waxaan u doortay culimadu dee waa ducaynayaan bulshadana waxaan ka doortay codkii sandalada somalilandna waxaan ku doortay nimankaa koofiyadda sitaa waa niman aada u qaaliya waayo caaqil kasta suldaan kasta boqor kasta hawl adag bay hayaan waayo shir buu ku jiraa mag buu kala qaadayaa reer buu heshiisiinayaa gabadh buu meherinayaa shaqo aada u adag bay hayaan oo bulshada meel muhiima bay ugu jiraan nolosheenna somaliland markaynu seesaynayna dee cuqaal baa ka u ahayd nimankaa koofiyadda le aad baan uga dambeeyaa ilaahay baa idin deege wixii idinka maqan aad ka helaysaan oo idin siinaye hawsha halkaa kasii wadaan qodala caqalada halkaa kasii wada waana aad baan u salaamaya sandalada soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan waxaan u salaamaya reer somaliland haddii ay dhacday inuu guuleysto cabdiraxmaan cere iyo xisbigiisu ma laga yaabaa inaad siyaasadda ku biirto oo xukuumadda xilka raadiso may anigu ma jeclin nimankaa xilla kama rabo xoolo kama rabo xilo kama rabo nin xisbigooda u tarisaya mayhi dee waxaan taageerun bay iga tahay oo xalka qarankuun baan u arkaa nin hunguri anigu igu sawiran yahay nin hunguri mayhi nin xilla ma jecli xilkana sideedaba ma jecliba inaan qabto mustaqbalka barajeynaya inuu siyaasadda ku biiro may anigu wax kalaan rabaa inaan sameeyo bulshada qayb baa ka banaan waxaan doonayaa in loo sameeyo tiyatare islaamiya oo bulshada la wacyigeliyo qofkooda baahan in lasoo dhigo halkaa dhaqankeenii iyo sharafteenii aynu lahayn halkaa lagu iibiyo qofka buugga iyo artiska meelahu kusoo bandhigayo meelahaasaan jeclay inaan ka shaqeeyo laakiin anigu xilka ma jecli qofada wax buu leeyahay anigu inaan siyaasi noqdo oo ummad u taliyo ma jecli waayo haddaan xil jecelahay xidigahan guddoomiye noqon lahaa marka anigu marnaba ma jecli xilka qaybta loo halkaa inoo joogto waay waa inoo qaybta saddexaad saaxiibayaal iyo barnaamijkeenii gaarka ahaa aynu ku wareysanaynay maxamed siciid